Kooxda kubadda cagta dekedaha oo maanta markaasi ciyaartay kulankeedii ugu horeeyay ee tartanka ay markaasi ka qayb galeysay oo ah CAF Champions League oo markaasi la ciyaartay kooxda Arta Solar kooxda lagu magacaabo. Kooxda dekeda ayaa kulan ciyaareedkan waxa uu ahaa kulankoodii ugu horeeyay ee lugta koowaad ee xilli ciyaareedkan ay ciyaartay waxaana durbadiiba isbedel weyn ay sameeyeen naadiga dekedaha oo sanadkan markaasi guul uga cad kulan ciyaareedka ayaa ahaa kulan aad u xamaasad badan oo ka xamaasad badan kulamadii hore ay soo ciyaareen. Isla markii kooxda dekeda ayaa maanta guul weyn oo taariikhi ah ayay markaasi ka soo heshay kooxdan ay markaasi la ciyaareen. Ciyaarta ayaana ku soo idlaatay 2-0 oo ay guusha ku raacday wiilasha kooxda dekedaha uu hogaamiyay Macalin Siciid Geese. Goolka koowaad waxaa dhaliyay Xaaji halka goolka labaad uu dhaliyay Idris Bilaal. Labada xidig ayaana markaasi doorka guusha siiyay kooxda dekedaha oo sanadkan ka qayb galaya CAF Championship horena uga qayb gashay iyadoona guuldaro ay kala soo kulantay. Kooxda dekeda ayaa cashar ka qaadatay kulamadii hore ay soo ciyaareen oo ay markaasi aadayeen dhanka dibadda. Ciyaartan ayaana lagu ciyaaray dalka Tanzania waxayna guushan u horseedaysaa in kooxda dekeda ay rajo weyn ay ka qabto sanad ciyaareedkan inay ku guuleysato tartanka CAF Championship haddii ay markaa u soo baxdo iyadoona kooxo dhowr ah oo qaaradda Afrika ay ku bartami doonaan. Xidigaha ugu fiicnaa ayaa qayb waxaa ka ahaa Sarqaawi oo isagana bedel ku soo galay waxaa lagu bedelay xidig lagu magacaabo Joshua waxaana sidaasi ay markaa dekeda fursado badan ay ku heleen xilli ciyaareedkan oo aad u xiisaha badan waxayna doonaysaa markaan in bandhig wanaagsan ay ku soo bandhigto tartan ciyaareedka xilli ciyaareedkan uu yahay mid ka duwan waxaana kooxdan kulanka labaad ay ciyaari doontaa maalinta ay taariikhdu tahay 22 ayaa la filayaa in lugta labaad ay ciyaari doonaan waxaana kooxda weli ay ku sii jirtaa tababarkii isku diyaarinta oo xilli ciyaareedkan ay markaasi doonayso in isbedel weyn ay ku sameyso waxaana kooxdan Macalin Siciid Geese horey ugu guuleystay horyaalka kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya sidoo kale koobka Jalal Daawud ayuu ku guuleystay Super Cup ayuu ku guuleystay waana 2 sano oo xiriir ayuuna kula guuleystay. Xidiga badan ayaana qayb ka ahaa ku guuleysiga dhammaan naadiga dekeda oo ku howlan ayaa sidaasi guusha taariikhiga leh ee ku gaartay. Kulanka labaad maxaa laga filan karaa kooxda dekedaha haddii ay markaasi kulanka labaad ay ciyaarto ay sida maanta ay ku ciyaareen ayna wax iska bedelin dadaalkoodana ay sii dheereeyaan waxay haystaan fursad oo weyn oo markaasi ka helayaan dhigooda kooxda AS Ultra waxaana la filayaa in mar kale ay ku rogaal celiso guulal kale oo aad u fara badan rajadeeduna ay markaasi tahay mid aad u sareeya. Goolka dekedaha weli lama gaarin kooxdan ayaa weli shabaqeeda ilaashanaysa haddii kulan ciyaareedka ay soo socda ay markaasi daafacyada iyo goolhayaha iyo dhammaan kooxda si wanaagsan ay markaa u shaqeeyaan ay heli karaan fursado kale oo qadiimi ah. Macalin Siciid ayaa horey u sheegay in sanadkan dekeda ay markaasi hami damac ay ka leedahay in tartamada Afrika ay ku soo guuleystaan iyadoona doonaysa in wax badan ay ka qabtaan kooxaha Soomaaliya kaga qayb galaya gaar ahaan naadiga dekeda in guul oo la taaban karo ay markaasi ka keento.